walaashay ma siin karaa zakada walaasha maxa inay sanad baaha inaad dambaadu ogtaa haddii walaasha ay faqiir tahay masruufkeeda adigu kugu waajibay ilaahay ku saaray ninka ragga ah uu qabsaday wuxuu qabtay walaalkeed iyo wiilkeedii ninkeedu qafaal ku qabtay markaas wuxuu ku yiri kala dooro kan ku deey midaan ku deeyna mid dooro waxay tiri nin waa la heli karaa tiri wiilna waa la dhali karaa laakiin walaal lama helay tiri walaalkii ii deey markaas wuxuu ku yiri kulligiina ii deey wiil xaj shaqayso maxaa dhacay guursanin ee guurkeeda dib u noqotay oo guurka ka daahay ee inta ilaahay ilma sii lahaa maxay sacrifice kaas dhan u sameysay dibkaas waxay u sameysay walaalkeeda yartay inay soo dhoofiso talo waraga mowqafkaas idinka abaalka cala aqal abaalkaas ma gudnaa anaga daaraknahay balse xuquuqda ilaahay nagu waajibiyay ayaa raba halka inaan ka sheego arag gabadha faa'iidada leedahay shariicada islaamka xuquuqda uu kugu waajibiyay inaad ogaatid waxa laga yaabaa walaasha ana weligaa telefoon u dirin aawicin xaaladeeda la soconin inaan qaba ilmo badan ay haysataa yuruba ku nooshahay walaasha xuquuqdeeda ma siisid xataa telefoon uma dirtid xataa soomaha nabiguna wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam haddaad walaasha ka war haydid jannada ayaa ku galaysaa sidii gabadhaada oo kale walaasha caruurteeda ma ogid marsuuf ma siisid bal waxaa laga yaabaa walaasha inay xaaskaaga ugu eexatida laga yaabaa ma dhahay xaaska ha laga eexdo laftigeeda cadaalo u fal laakiin nin waxaa laga yaabaa gabadha walaasha gurigaaga inay imaan karin maxaa dhacay islaantaada ka baqaysaa xuquuqda maanta gurigaaga inay walaashaas u gali weydo ee caruurteeda eedada u tahay marka maqaalibta inaan gidanin maxaa dhacay waxaan ilaawin xuquuqda ilaahayna saaray